waxaan doonayaa inaan sharaxo filim riwaayad Swedish ah oo la yiraahdo ninkii 100 sano jirka ahaa ee daaqadda ka baxday oo la waayay. Qaswada ah jilaaga filimkan ayaa ah oday 99 jir ah oo lagu magacaabo Allan Carlson. Wuxuu ku nool yahay meel fog tuulada Swedishka oo leh bisad xayawaan ah, labaduba waxay u muuqdaan inay aad isugu dhow yihiin. Nasiib darro hal maalin bisadu waxay si dhuumasho ah dibadda u soo gashay barafka halkaas oo uu soo weeraray oo uu dilay. Allan waa aad uga xumaaday in saaxiibkii keli ahaa ee noloshiisa uu tagay. Markaa wuxuu bilaabay inuu maleego argoosi. Waxa uu ku rakibaa xoogaa firfircooni ah oo ka soo baxa barafka, kadibna wuxuu dawacada ku daraa xoogaa sawsagis ah. Neefkii miskiinka ahaa markuu soo dhowaado waa la afuufo. Tani waxay farxad gelinaysaa odayga muddo, laakiin hadhow waxaa lagu ciqaabaa kharibantiisa. Allan waxaa loo wareejiyey guriga howlgabka halkaas oo uu ku noolaan doono inta ka dhiman noloshiisa. Toddobaadyo ayaa dhaafa, laakiin Allan meesha lama qabsan. Waxa uu jecel yahay inuu dibadda u baxo oo uu dareemo mid cusub hawada mar kale, laakiin maamulka ma ogola isaga. Allan wuu ka fakaday gurigii howlgabka daaqadda isla markii uu dhalashadiisii 100aad ahaa. Ma laha qaraabo uu la xiriiro ama qorshe lagu fulinayo, laakiin wuu ku faraxsan yahay inuu ugu dambayntii dibadda joogo. Kadib markii aan in muddo ah waddooyinka wareegayay, wuxuu soo gaaray goob basaska laga raaco. Dabadeed waxa uu la soo baxay xoogaa shilimaad ah oo uu ka codsaday soo dhoweeyaha in uu bixiyo isaga tigidhada baska soo socda. Nasiib darro, lacagtu kuma filna, markaas soo dhoweeyaha ayaa soo jeedinaya wuxuu aaday magaalo u dhow oo la yiraahdo Biringe. Wuxuu ku macneeyey inay tahay meel cidlo ah oo mid keliya leh degan, laakiin Allan oo ka dheregsan guriga howlgabka ayaa isla markiiba iibsada tikidhada. Isla markaa xubin gaangis ah oo u muuqda mid xanaaqsan oo lagu magacaabo Bolton ayaa yimid halkaas isagoo shandad weyn la jiidaya. Wuxuu toos u galay musqusha, laakiin shandadu kuma habboona. Markaa wuxuu ku amray Allan inuu ilaaliyo ilaa uu ka soo noqonayo. Odaygii wuu aqbalay, laakiin wax yar kadib markii uu baskiisii yimid ayuu la fuulay shandadii. Muddo kadib basku wuxuu ka baxay saldhigga, Allanna wuxuu bilaabay ka sheekaynta carruurnimadiisii. Markii uu yaraa, aabbihiis waxa uu hindisay ilaalinta caagga ah oo uu isku dayay in uu taageero dadweynaha guud. Si kastaba ha ahaatee, boqortooyada Sweden ayaa arrintan u qaadatay mid aflagaado ah oo xabsiga loo taxaabay. Kadib waxa ay dileen iyaga oo kaashanaya kooxdii toogashada ahayd. Allan wuxuu xusuustaa maalintii ay madaxda qaar gurigiisa ugu yimaadeen iyo shaaca ka qaaday geerida aabbihiis. Waxay wateen qaar ka mid ah alaabtiisii, kuwaasoo u badnaa walxaha qarxa iyo waxyaabaha la isku qurxiyo. Inkastoo hooyadii aad u ooyday, Allan ma uusan siin hal jeex sababtoo ah aabbihiis mar walba uu ka maqnaa noloshiisa. Halkii waxa uu bilaabay tijaabinta walxaha qarxa oo uu si degdeg ah uga dhigay hiwaayadiisa. Sannado kadib hooyadii ayaa iyaduna geeriyootay kadib markii ay muddo dheer la dagaalantay kansarka. Hadda Allan gebi ahaanba waa keligiis, ma jirin qaraabo iyo saaxiibo taageera isaga. Si kastaba ha ahaatee ma uusan daryeel midna. Allan waxa uu sii watay hiwaayadiisa ah in uu wax qarxiyo oo uu si tartiib ah uga soo roonaaday. Wakhtigan xaadirka ah wuxuu yimid Biringe oo ah magaalo yar oo meel dhexe ah. Goorma mas'uulka saldhigga Julius wuxuu arkay Allan oo la wareegaya shandad weyn, wuxuu weydiiyey in wax walba ay fiican yihiin. Dambe wuxuu sharxayaa inuu doonayo keliya inuu sahamiyo adduunka inta uu awoodo intuusan dhiman. Julius markuu tan maqlay wuxuu ku casuumay gurigiisa oo u soo bandhigay isaga cunto. Halkaa marka ay marayso, saraakiisha guriga howlgabka ayaa sidoo kale ka war helay Allan waayida iyo howlgal baadi goob dhexdhexaad ah oo uu hogaaminayo baaraha Aronson ayaa la sameeyey. Meel kale waxaan aragnaa in Bolton uu garaacay soo dhoweynta, waxayna labadoodu hadda ku sii jeedaan Biringe. Xubinta baandada cadaysan waa ku adkaysanaysaa markuu soo saarayo shandadiisa, taasoo muujinaysa in shay aad u qiimo badan lagu hayo. Muddo kadib wuxuu u dhigay Biringe oo isla markiiba madaxa gudaha keliya guri halkaas jooga. Bolton waxa uu ka helay Julius tikada oo waxa uu bilaabay in uu weeraro si uu u helo macluumaadka shandadiisa. Nasiib wanaag, Allan ayaa gadaal ka yimid oo ku garaacay madaxa ku dhufo. Labadii oday ayaa markaas jiideen meydkiisii oo waxay ku xireen unug qaboojinaysa. Muuqaalka soo socda, Allan iyo Julius waxay go'aansadeen inay furaan shandada si ay u arkaan waxa dhabta ah ee ku jira. Naxdintooda waa rar iyo rar lacag caddaan ah. Inkasta oo ay da' weyn yihiin, labadooduba way indho tireen lacag oo ay go'aansadaan inay naftooda u haystaan. Habeenkaas waxay u dabaaldegaan guusha ay ka gaareen cabitaanada. Nasiib darro, subaxdii xigtay waxay ogaadeen in Bolton uu weli ku xiran yahay qaboojiyaha.
Julius ayaa u degdegay si uu u eego, laakiin markii uu albaabka ka furay, xubinta baandada ah waa horeba dhintay. Tani waxay ka cadhaysiisay dadkii waayeelka ahaa iyadoo nin aan waxba galabsan uu u dhintay dayacaadkooda. Si kastaba ha ahaatee, Alan maaha markii ugu horraysay ee uu qof dilo. 10 sano ka hor, isagoo weli dhalinyaro ah, wuxuu si lama filaan ah u qarxiyey nin ganacsade ah oo tijaabinayay waxyaabaha qarxa ee uu soo saaray. Natiijo ahaan wuxuu ku xirnaa magangelyo maskaxeed halkaas oo uu ku noolaa 30 sano. Waxaa intaa dheer, ka hor inta aan la sii dayn Alan waa la gooyey, sida ay saraakiisha rumaysteen, waxa kale oo ay dhashiiso khatar ku noqon lahayd bulshada. Alan wuxuu ku wareegay magaalada ilaa wuxuu shaqo ka helay warshad canon ah. Halkaas wuxuu kula kulmay kacaan Isbaanish ah oo la odhan jiray Esteban, oo bilaabay barashada siyaasadda. Maalmihii ay dhaafeen waxay noqdeen saaxiibo wanaagsan. Esteban wuxuu ugu dambayntii ku qanciyey Alan inuu ku biiro dagaalka ka dhanka ah kelitaliska Spain. Labaduba waxay u safreen Madrid halkaas oo ay qorshaynayeen inay dilaan General Franco. Si kastaba ha ahaatee, maalintii ugu horraysay Esteban waa la dilay sababtoo ah dabeecadiisa hadal badan. Tani ma cabsi gelin Alan inkastoo oo wuxuu sii waday inuu sameeyo waxa ugu wanaagsan, wax qarxin. Wuxuu noqday mid aad u badan qayb muhiim ah oo kacaanka ah, wuxuuna ka caawiyey kooxdiisa inay ku guulaysato dhowr dagaal. Laakiin hal maalin, isagoo isku dayaya inuu soo xiro waxyaabaha qarxa, ayuu si lama filaan ah uga tagay, wuxuuna go'aansaday inuu ku laabto Sweden. Soo laabashadiisa ayuu baabuur istaajiyey si uu wiish u dalbado, isla markaasna uu qarax weyn ka dhacay meel u dhow. Waxaa yaab leh in qofka gaariga saarnaa uusan ahayn mid kale oo aan ahayn General Franco. Waxa uu u arkayay Alan geesi naftiisa badbaadiyey. Markaa si uu u soo celiyo raalinimada, General Franco wuxuu qabtay xaflad qaali ah oo waad socotaa. Tani waxay yara jahawareerinaysaa Benny, laakiin waxba ma weydiin oo wuxuu bilaabay baabuur wadida. Muddo ka bacdi waxay ku soo jiiteen kaalin shidaal si ay dib ugu soo kiciyaan. Nasiib darro, Benny wuxuu arkay boodhadhka maqan ee Alan wuxuuna ka hor yimid isaga. Odaygii ayaa isku dayaya jidka uu kaga baxo xaaladda, laakiin waxba ma tarin. Sidaa darteed, wuxuu si cagajiid ah u qufacayaa runta oo dhan. Sida ay u dileen nin iyo sida ay malaayiin lacag ah u haystaan. Julius markaa weydiistay Benny inuu qayb ka noqdo kooxdooda oo uu ku wado waddanka oo dhan. Beddelkeeda isagana waxaa la siin doonaa saami siman oo lacagta ah. Isagoon 2 jeer ka fikirin, Benny uu aqbalay. Taas kadib, filimku wuxuu galaa dib u soo celin kale. Alan bistooladii uu siiyey ayuu iibiyey Franco beddelka ogolaanshaha shaqada ee Ameerika. Markii hore waxa uu u shaqeeyey sidii shaqaale dhisme. Laakiin kadib, isaga oo isticmaalaya aqoontiisa ballaaran ee walxaha qarxa, wuxuu bilaabay inuu ku dhex milmo saynisyahanada caanka ah, sida Oppenheimer. Wuxuu xitaa ka caawiyey inay xaliyaan mushkilad muhiim ah oo ka jirta mashruuca Manhattan, bambadii ugu weyneyd ee nukliyeerka wakhtigaas. Wax yar kadib, Alan wuxuu noqday shakhsi caan ka ah gobollada, si aad u badan oo xataa madaxweyne ku-xigeenku casho ugu casuumay. Dhowr sano kadib, Alan wuxuu ku soo laabtay Sweden. Dad badan ayaa u arkayay inuu yahay geesi waxqabadkiisa fiisigiska nukliyeerka. Maalin maalmaha ka mid ah, isagoo shir kula jira qaar ka mid ah diblomaasiyiinta Sweden, waxa uu la kulmay saynisyahan Ruush ah oo la odhan jiray Popov. Danta ay wadaagaan ee walxaha qarxa awgeed, waxay si dhaqso ah u noqdeen saaxiibo. Popov wuxuu ku martiqaaday Alan inuu la yimaado Ruushka. Maalintiisii ugu horraysay ee Moscow, Alan wuxuu la kulmay Stalin. Kii dambe ayaa weydiiyey si loo muujiyo wax walba oo ku saabsan mashruuca Manhattan, laakiin Alan wuu diiday. Natiijo ahaan, waxaa loo diray gulag halkaas oo uu kula kulmay walaalkii Alberto Einstein oo xishood badan Herberti. Hoyga qof walbana markuu mashquulo ayuu Alan gadaal ka qabtaa. Xubinta baandada ayaa markaas u hanjabaya kuwa kale si ay shandadiisa ula soo baxaan haddii aanay doonayn inay arkaan odayga oo dhintay. Cagajiid. Benny ayaa gudaha u galay oo soo saaray bacda, laakiin isla markii xubinta baandada ahi ay qarka u saaran tahay inuu baxsado, Gunilla waxay la timid hub ay iyadu leedahay. Tani waxay cabsi gelisaa xubinta burcadda ah. Isagoo argagaxsan ayuu simbiriirixan oo toos ah ugu dhacay maroodigii weynaa. Nasiib darro, neefkii miskiinka ahaa wuu argagaxay oo dul fadhiistay kooxdii burcadda ahayd, isla markiibana wuu dilay. Dhacdada kadib, nimankii ugu dambayntii way nadiifiyeen lacagta, waxayna bixiyeen lacag la mid ah, sidoo kale la wadaag Gunilla. Beddelkeeda waxay ku qasbanaan doontaa inay ka caawiso inay iska tuuraan jirka. Meelo kale, geedan waxay noqotay mid nasasho la'aan ah. Sababtoo ah 2 ka mid ah xubnaha gaangiisa ayaan ka jawaabin wicitaankiisa.
markaa cadaadiska oo kor u kaca wuxuu go'aansaday inuu jebiyo qalabkiisa anqowga oo uu u baxo si uu u raadiyo shandada laftiisa. mar kale filimku wuxuu galay dib u dhac. Alan waxa uu noqday wakiilka CIA-da. dhowaan waxa uu yimid kooxdii sirta ahaa ee Soofiyeedka KGB. sida labada dhinacba ay u siiyeen magdhow wanaagsan, Alan wuxuu noqday wakiil labalaab ah. hawl maalmeedkiisa shaqo waxa ay ka koobnayd in uu xogta sirta ah ee Maraykanku u gudbiyo Soofiyeedka iyo lidkeeda. si kastaba ha ahaatee, inkasta oo uu sannado badan ahaa nin damiir leh, weligiis lama qaban. wakhtigan xaadirka ah, kooxdu waxay tuurtaa jidhka xubinta gaangiska oo ay go'aansato inaad ka baxdo guriga maadaama aysan ammaan ahayn. markaa Gunilla waxay soo saartaa baabuurkeeda kaas oo leh qol ku filan oo lagu hagaajin karo maroodiga sidoo kale. durbadiiba waddadii ayay ku dhufteen oo way sii socdeen magaalo kale, laakiin jidka gedan ayaa helay iyaga. wuxuu hor istaagaa baabuurkiisa iyaga ka mid ah oo ay isku dayeen in ay toogtaan darawalka, laakiin tani waxay keenaysaa keliya shil aad u xun. wixii ka dambeeyey, geedan ayaa laga tegay dhaawac halis ah, sidaas darteed kooxdu waxay u nugul yihiin dhaawaciisa oo uu kaxeeyo. kadib safarkoodii ayay dib u bilaabeen oo waxay aadeen garoon diyaaradeed oo u dhow. waxaa soo baxday in Alan uu u diyaariyey diyaarad ay ku baxayaan iyaga oo isticmaalaya mid ka mid ah xiriirkiisii hore. dhowr saacadood kadib, gedan aakhirkii waa soo toosay, laakiin ma xasuusto cidda uu yahay iyo sida uu yahay. halkaas ku gaadhay. markaa wuu isdejiyaa oo wuxuu go'aansaday inuu sii wado safarka uu la socdo ragga. fiidkaas ugu dambayntii waxay soo gaareen meeshii ay u socdeen, halkaas oo uu ka soo qaaday xiriirkii Alan. xataa maroodiga ayaa lagu hagaajiyey gudaha diyaaradda, waxaana ay isla markiiba kacaan iyagoo rajaynaya nolol wanaagsan. muuqaalka ugu dambeeya, kooxdu waxay soo gaaray Bali. waxaa soo baxday in tani ay ahayd Alan qorshe oo dhan. tan iyo markii uu gacanta saaray shandada wuxuu rabay inuu qaato inta kale waagiisii cirka qorraxda ee Bali. Benny iyo Gunilla way isguursadeen halka Gedan uu ka tegayo tiisa dembi soo dhaafay oo bilaabay nolol wanaagsan. dhanka maroodiga, hadda wuu awoodaa ugu dambayntii ku wareego kaymaha dhaadheer iyo xeebaha dahabka ah adoon cidina dhibin.